allah ma abuuristi allah ayuu ugu nacay muddo 1 sano ayaa isla soconay baraha bulshada ayaan iska baranay muddo markaan isla wada soconay oo aan u sheegay in aan naafo ahay ayuu qalbiga iga jabiyay qalbiga ayuu iga toogtay markaas ayuuna i dhahay uma qalantid jacayl inaan kula sii wado hibo waxa ay ka mid ahayd gabdhaha ku xiran barteena YouTube-ka oo mar walba qisooyinka aan soo gelino barteena YouTube-ka Socdaal 24 ku xiran hibo ayaana naga codsatay qisadani ku dhacday inaan u soo gudbino saaxiibada ku xiran janaalkeena waxa ay ku bilowday sida tani anigu waxaan jiraa 20 sano ayay dhahday waxbarashadeedu waxaan dhameeyay sanadii 2020 ayay dhahday haddana waxaan dhiganayay mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho xiriirkeena jacayl ee quruxda badan ee aan u qaaday Maxamed waxa uu soo bilowday sanadii 2019 ayay dhahday habeen 5 saac arbaca soo galayso ayaan iska baranay aaladda Facebook-ga markaas kadib ayuuna iga codsaday sawiradeedii inaan u soo diro maadaama markaas uu i dhahay sawirku ku saaran aad ayuu u qurux badan yahay anigu waxaan ahay qof xaaladda markaas ku jiro lagu ciilay oo naafo ah qof walba oo markaas dariskeenu ahayne aad ayuu ii bahdili jiray oo xiriir inuu ila sameeyo anigoo nasiibkayga iska suganayo tan rabbina ku qanacsan ayay dhahday markaas oo Maxamed ilaah aad ayaan u farxay kadib sawiradeedii oo haaf ahaa ayaa u diray ammaan ayaa ka baxday dareen saa'id ah ayuu qaaday markaas kadib ayaan u sheegay degmada aan deganahay waxa aan qabto iyo waxaan ahay kadib aad ayuu ii soo dhaweeyay kadib ayuu i dhahay xiriir jacayl ma leedahay markaas ayaan ku dhahay maya markaas ayuu ugu dhahay gabar qurux badan ayaa tahay adigoo sidaan u qurux badan miyaad xiriir la'aan tahay markaas ayay dhahday haa boowe anigu xiriir aan leeyahay ma jirto ka waran haddaan xiriir sameysano markaas ayay dhahday way fiican tahay way qurux badan tahay inaan sameysano laakiin amay dhacdaa inaad qalbiga iga toogato amay dhacdaa xaaladaan ku noolahay markaan kuu sheego in jacaylkeen wax ma jiraan ka soo qaadid amay dhacdaa tani saan haddee tahay maxaan u jeclaadaa markaas ayuu dhahay abbaay waxaas ma dhacaayo waan ku jeclahay wax walbaa tahay waan kugu qanacsanahay sababtoo ah sawiradaada aad ayay u qurux badan yihiin muuqaalkaada markaa arkane intaasi inka badan ayaa kasii qurux badnaa doontaa halkaas ayaan ku soo afmeerayaa qaybtii koowaad anigu naafaan ahay muddo 1 sano markaan isla soconane oo aan xaaladdan ku jiro u sheegay kadib wada cidlah ayuu iiga dhaqaaqay muraayadii qalbigayga ayuu toogtay waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal waxaa ka daawanaysiin barta YouTube-ka Socdaal 24 saaxiibna la noqo si mar walba u heesid qisooyinkan jacayl ku xirnaaw la soco qaybtii labaad oo aad u xiiso badan